السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa sharxaynaa filim hindiya argudasho ah kaasoo hogaamiye ka yahay master professionalist Amir Khan kaasoo soo baxay 2007 ahaana blockbuster taariikhi ah waxaana lagu magacaabaa Gajini. inta aan filimkeedna u gudagelin waxaa ka codsanaynaa fadlan inaad subscribe noo saartid, leegtaada waa noo dhiirigelin, halka commentigana ah noogula wadaag fikirkaaga. mahadsanid. laabitariga hospitaalka waxay fiirinaysaa faylo, waxa ayna u qaadaysaa profesorkeeda, waxa ayna u sheegaysaa in ay rabto in ay kiiskan u ahaado mashruuceeda. profesorku waxa uu sheegayaa in aysan qaadan karin sababtoo ah kiiskan waxaa furay booliska. Sonita waxa ay cadaadis ku saartay profesorka, laakiin profesorku ma bedelin go-aankiisa. Sonita waxa ay weydiisay wax ku saabsan ninkan ku sawiran faylka. profesorku waxa uu la wadaagay sheekadiisa, waxa uuna u sheegay in lagu magacaabo Sanjay uuna yahay nin maskax ahaan u xanuunsan kaas oo dhibaato xusuusta ah qaba. jug ka soo gaadhay madaxa 15 daqiiqo kastana uu ilaawayo wuxuu maray. Sonita waa ay yaabtay sida uu u nool yahay ninkan. profesorku waxa uu yiri waxa uu qaban karaa howlo fudfudud oo aan caadadiisa ahayn, waxa kale uu qaataa qoraalo si uu ula socdo dhacdadiisa. Sonita waxa ay la yaabtay ninkan waxa uu sameeyo waqti xaadirkan filimkeenu waxa uu isku rogayaa Sanjay oo garaacaya nin ilaa uu ka dhinto. waxa yeeraya gambaleel jaakadiisa, waxa uuna la soo baxayaa warqad, waxa uuna xadayaa taleefanka ninkii uu dilay. contactskiisana waxa uu ku arkayaa magaca Gajini. waxa uu xasuustaa qaybo kamid ah taariikhiisa hore, qaybta kalena waa uu hubiyaa xaqiiqadu. waxa uu sameysanayaa noodad cusub. gambaleelka waxa uu ku xiranayaa tilkiisa, waxa uuna qorayaa dil Gajini. Sanjay waxa uu ku soo laabanayaa filadiisii weyneed, waxaana ka buuxa noodad yaryar goobtaas. gidaarada gurigiisa ama darbigiisa ka u taqaanidba waxaa ku qoran qoraallo aad u tiro badan, dhammaantoodna ay sheegayaan sidii lagu heli lahaa Gajini. waxaana ku qoran darbiyada qaarkood dil Gajini iyo hel Gajini. sidoo kale waxa uu galay qolka qubayska, waxa uuna ku arkayaa warqad hagaysa isaga, waxa ayna u sheegaysaa in uu iska siibo shaatiga. markii uu siibo shaatiga waxa uu arkayaa jirkiisa oo wada shaabad ah oo qoraallo ku qoran yihiin. xabadkiisa waxaa ku qornayd Kalbana waa ay dhimatay. waqti yar waxa ay maskaxdiisu dib u xasuusanaysaa xasuuso yaryar. waqtigaas waxa uu dareemayaa xanuun maskaxda ah iyo mid jir ahaaneed isaga oo sameynaya push up iyo buul. waxa uu helayaa warqado dareenkiisa kicinaya waana uu oynaya. Sonita si lama filaan ah waxa ay ku turunturoonaysaa Sanjay, waana ay aqoonsanaysaa in uu yahay faylkii bukaanka ninkii ku sawirnaa. si fudud waa ay la hadlaysaa, waxa ayna ka codsanaysaa in ay 2 daqiiqo la hadasho. waxa ay weydiinaysaa xoogaa su'aalo ah oo ku saabsan nafsadiisa, cidda madaxa ku dhifatay, balse ma uusan rabin in uu uga jawaabo. Sonita waxay u sheegaysaa in uu sawir ka qaato haddii ay awoodo, ayna ku qorto in ay saaxiibo yihiin, waana uu sameeyay arrintaas isla markiina waa uu iskaga tagay. mid ka mid ah booliska oo la dhaho Arjun ayaa soo dabagalaya Sanjay, waxa uuna ku soo laabtay xaafadiisa halka uu aayar u daba socday ilaa uu jeegada uga dhuftay nabar uuna ku xirxiray kursi, isaga oo bilaabay in uu fiirfiiriyo guriga. khaanad ka mid ah guriga Sanjay waxa uu ka helayaa buug xusuus qor ah kaas oo ku dhagan yahay sawirka Sanjay oo waqti hore ah. Arjun waxa uu fiirinayaa xasuus qorkii Sanjay. filimkeenuna waxa uu dib ugu laabanayaa Sanjay waagii hore. Sanjay waxa uu ku imaanayaa diyaaradiisa khaaska ah. run ahaantii waa ganacsade guulaystay, hamigiisuna hirgalay. hadafkiisa ugu weynna uu yahay in uu sameeyo shirkadda taleefoonada dalka Indiya. markaa sheekadeena dib ugu laabano waxayna tusaysaa sidii ay bilowga isku barteen Kalbana iyo Sanjay. waxaa dhacay ismaandhaaf aad u weyn oo qof walba u maleeyay Kalbana in ay shukaansato ama xiriir la leedahay Sanjay. Kalbana waxa ay ka faa'iideysanaysaa arrinta, waxa ay helaysaa danayn badan oo ah in uu saaxiibkeed yahay Sanjay. waxa ayna ka soo dalacday jilaa taageeranimadii, waxa ay noqotay jilaa, xitaa waxa ay noqotay agaasimaha jilista. markii uu Sanjay arrinta warbaahinta ka ogaaday asagoo aan wax xiriir ah lahayn, waxa uu booqday Kalbana. sidoo kale Kalbana maba ay taqaano qofka uu yahay Sanjay, waxa ayna u qabtay nin ugu yimid in uu shaqo aktarnimo rabo. markii uu yimid Sanjay maalintii xigtay booskeedu waxa uu sheegayaa in ay leeyihiin xaflad ayna
ayna marti qaado saaxiibkeed kalbana aad ayay u cabsanaysaa sababtoo ah sanjayga dhabta maba ay taqaano. waxa kale oo ay ka baqaysaa in lagu ogaado beenteeda. waxa ay shaqaalaysiisay actor ayada oo ka codsanaysa in uu matalo sanjay balse kuma uusan soo bixin jilista. waxa uu imaanaya sanjay waxa ayna u sheegaysaa xaqiiqada ayada oo caawimaad weydiisanaysa iyo in uu u matalo booska sanjayga dhabta ah. xaflada kalbana waxa ay sugaysaa asaga. markii uu yimid xaflada qof walba waxa uu usoo dhaweeyey si diiran. kalbana waxa ay ku fakartay in uu yahay actor fiican, qof walbana waxa uu ka warqabaa in uu yahayba sanjayga dhabta ah. dadka kale waa ay garanayaan in uu yahay sanjay. waxay u cashaynayaan si wanaagsan. qof dumara waxa ay ka codsanaysaa caawimaad waxa uuna siinayaa jeeg sadaqa ah. waqti dambe baska kalbana waa ay qoslaysaa waxa ayna leedahay dunida dadka ku nool waa doqomo sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in aad tahay sanjay. si markii loo fiiriyo ayadaaba doqonaba. sanjay waxa uu sheegayaa in uu jecel yahay ayada, sidoo kale waxa uu ka codsanayaa in uu rabo inuu guursado. kalbana waxa ay tiri waan kasoo fakarayaa ilaa biri. markii ay ka tagtay baska keligii sanjay waxa uu yiri indhaheedu caadi maaha, waa inaan ilaaliyo ayada. intaa kadib filimkeenu waxa uu dib ugu soo laabanayaa arjun oo dhameeyey buuggii sheekada uu nooga akhrinayay. arjun aad ayuu ugu hamuun qabaa in uu helo sheekada oo dhammaystiran. waxa uuna helayaa buuggale balse sanjay ayaa kasoo furanaya xariga waa uuna garaacaya. waxaa soo dhacaya taleefankiisa waxa uuna xasuusanayaa in loo baahan yahay in uu helo gejni. sanjay waxa uu kasoo qaybgalay xaflad arday kuleej dhigata. daadiyaha barnaamijku waxa uu sheegayaa inuu xafladooda kasoo qaybgalayo master gejini. sanjay oo fadhiya meesha waxa uu fiirinayaa gadaal waxa uuna sawir ka qaadanayaa gejini waxa uuna ku hoos qorayaa magaciisa. sanjay waxa uu usoo degtay qaybta hoose ee baakinka gawaarida. waxa uu wacay gejini isaga oo isku dayaya inuu ugu yeero meesha balse taleefankiisa nin ayuu usoo dhiibay una sheegay inuu soo fiiriyo. ninkii markii uu yimid meesha baakinka waxa uu arkay sanjay oo jooga isaga oo is-ilaalinaya. waxa uu weeraray sanjay balse wax dhib ah uma uusan geysan oo si fudud ayaaba looga adkaaday. waa uu qayliyey waxaana soo orday gejni iyo niman kale kuwaas oo soo xabadeeyey sanjay isaguna waaba uu ka cararay meesha. gejni waxa uu weydiiyey cidda uu ahaa. ninku waxa uu sheegay 2 sano ka hor wax dhacay laakiin inta uusan u dhammaystirin qisada waaba uu dhintay. maalintii xigtay sunita waxa ay u timid sanjay gurigiisa. markii ay garaaci rabtay albaabka waa uuba furnaaba. ayada oo ku dhex socotay guriga waxa ay aragtay arjun oo armaajada ku xiran. waxa ayna ka furtay xargihii ku xirxirnaa. waxa uuna u sheegay inuu yahay sanjay nin waalan balse sanjay ayaa gadaashooda kasoo muuqanaya. arjun waxa uu maareeyey inuu cararo halka uu sanjay cayrsanayay. arjun intuu cararayay waxa uu ku dhimanayaa shil gaari. waxa uuna dib ugu soo laabtay sonita waana uu cayrsanayay laakiin ayadu waxa ay maaraysay in ay ka baxsato. isla markii waxa ay ballamisay gejni ayada oo u sheegaysa wax ku saabsan sanjay sidoo kalena qorshihiisa inuu yahay inuu dilayo. xitaa waxa ay siinaysaa fayl uu sameeyey sanjay kaas oo ah si fudud ka hel gejni. si kastaba ha ahaatee waxa ay kusoo noqotay gurigeeda. waxa ayna xasuusanaysaa in ay sawirkeeda uu hayo. waa ay ooynaysaa. waxa ay ku fakaraysaa haddii boolisku qabtaan inuu u fakari doono in ay ayadu u gacangelisay. sidoo kale waxa ay wacaysaa gejni ayada oo weydiinaysa inuu sawirkeeda hayo sanjay uuna dib ugaga soo celiyo balse ayadu ma ay oga cidda ay la hadlayso inuu yahay sanjay kaas oo guriga soo jabiyey gejni si uu u dilo. sanjay markii uu ogaaday arrinta waxa uu soo cararayaa gurigeeda waxauna isku dayayaa inuu dilo. waxaa kasoo gaaray booliiska waana ay xireen sanjay. muuqaalka xiga sonita waxa ay xasuusanaysaa in ay buug kasoo xaday guriga sanjay. waxa ayna furaysaa kii koowaad waana ay akhrinaysaa. waxa ayna bilaabaysaa kii labaad kaas oo filimkeenu quseeyo. waxaa dib ugu laabanaynaa sheekadeeni markii uu gaariga joogay sanjay halkaas oo ay noo maraysay. wax walbana waa ay isbedelayaan waxaana bilaabanaysa sheeko cusub. kalbana waxa ay aqbalaysaa jacaylkiisa. sanjay waxa uu saaran yahay gaari waxa uuna u soo jeedinayaa inuu damacsan yahay inuu guursado ayada halka ay ayaduna u sheegayso in ay jeceshahay asaga. sanjay waxa uu wadaa inuu qariyo noloshiisa dhabta ah. sonita waxa ay bedelaysaa maskaxdeeda
maskaxdeeda markay akhriso buugaagta waxaayna ku fekeraysaa in ay wax badan ka dhiman tahay sheekada. Sanji waxa ayna bilaabaysaa in ay raadiso xog. Dhanka kale booliisku waxa ay arkayaan nambarka Gejini oo ku qoran Sanji jirkiisa waa ayna wacayaan. Gejini waxa uu imaanayaa police stationka waxa uuna sheegayaa been isaga oo dhahaya waxaan ahayn saaxiibo hore kan ugu daacadsan awna u jecel yahay, taasaana keentay inuu nambarkayga ku qoro jirkiisa. waana uu soo kaxaysanayaa Sanji waxa uuna keenayaa xaafadda waxaana uu go'aansanadeen in aysan dilin bedelkeeda ay nolosha ku cadaabaan. Gejini iyo nimankii la socday waxa ay burburinayaan xasuusihiisii waxayna ay qaateen dhammaan noodadkii dadka ugu qornaayeen, xitaa taatuuga ku qornaa waa ay tirtireen. dhanka kale Sonita xog ayay raadinaysaa waxa ayna ogaanaysaa in Sanji saaxiibtiis uu wax ku sameeyay Gejini. haddii aan dib ugu laabano Kalbana waxa ay ahayd amni, halka koox gabdha ah ay dareemayeen tacaddi iyo in laga ganacsanayo ayaga. laakiin goortii ay timid Kalbana goobta ay joogeen gabdhuhu waxa ay hubisay in ay fiican yihiin waxa ayna weyday 2 gabdhood. waxa ay la kulantay Gejini iyada oo ku eedeynaysa gabdhaha la waayay sababtoo ahna waxa uu mas'uul ka ahaa meesha. Kalbana waxay dib ugu soo laabanaysaa gurigeeda waxa uu amrayaa in la dilo. Sanji waxa uu yimid guriga waxa uuna dareemay inay wax khaldan yihiin. waxa uu ku soo cararay gudaha apartmentiga waxaana ku soo baxday Kalbana waxa ayna gashay laabtiisa waxa uuna taabtay toorey ay uga dhufteen ciidanka Gejini dhabarka, halka ay ayadu dhagta ugu sheegaysay magaca Gejini. waqti yar kadib waxaa yimid Gejini iyo ciidankiisa waxa ayna weerareen Sanji waana ay garaaceen waana ay dileen Kalbana ayaga oo labadoodaba uga tagay meyd ahaan. Sonita waxay ogaatay in uu Sanji yahay nin fiican kaliya uu rabo in uu aargoosto. Sonita waxay hospitaalka ugu tagay Sanji waxa ayna siinaysaa buugtiisii xusuus qorka Sanji markii uu arko waa uu ku wareerayaa sida ay wax u dhaceen. Sonita waxa ay siinaysaa caawimaad dheeraad ah iyo in uu soo xasuusto hadafkiisa waxayna u soo kaxaynaysaa goobtii ay ku sugnaayeen Gejini iyo ciidankiisa. waxa ay tusaysaa Gejini mana uu aqoonsanayo ilaa ay u tilmaamto inuu yahay ninka dharka cad. Sanji waxa uu aadayaa Gejini waxaana hor istaagaya koox niman ah marka hore waxa uuna garaacaya ayaga si fudud waxaana uu jajabinayaa lafahooda. ugu dambeyntii waxa uu helayaa Gejini waxa uuna ku dhufanayaa laad. Gejini waxa uu helayaa fursad uu ku baxsado waana uu cararayaa, halka Sanji uu ceyrsanayo kooxda Gejini waxa ay isku dayayaan inay caawiyaan booskooda kana celiyaan Sanji. taasina waa ay ku adkayd sababtoo ah Sanji aad ayuu u xoog badnaa, dhammaantoodna waa uu garaacayaa si fudud. si kastaba ha ahaatee Gejini waxa uu ku jiray in uu cararo waqti yar. Sanji waxa uu gadaal uga imaanayaa Gejini waxaana ka tagaysa xasuustii waxa uuna weydiinayaa waxa uu meesha u taagan yahay. wax fikirina kama uusan haysan qofka uu yahay ninkan. halkaas ayuu Gejini ka faa'iidaystay oo isaga dhigay in uu yahay saaxiibkiis asagoo uu weydiistay in uu caawiyo cadowna ay ceyrsanayaan ay garaaceen asaga. Gejini waxa uu ka faa'iidaystay fursadaas waxa uu soo qaatay bir waxa uuna uga dhuftay madaxa. Sonita oo meesha ka dhaweyd waxa ay isku dayaysaa in ay caawiso wayna ku soo ordaysaa. waxa uu ku dhufanayaa farajirjir waxa ay ku dhacaysaa dhulka. Sanji waxa uu isku dayayaa in uu dilo dibna u soo kaco balse ma uusan awoodin oo ma uusan hayn wax tabar ah, halka Gejini uu si joogto ah u laadayay. Gejini waxa uu dareemayaa in ay tahay waqtigiisa waxa uuna u sheegayaa Sanji in uu soo fiiriyo una uu dili doono Sonita sidii uu u dilay Kalbana indhihiisa ayaga oo ay daawanayaan. Gejini waxa uu isku dayay in uu dilo balse Sanji ayaa waxa uu nabar uga dhuftay madaxa waa uuna garaacay ilaa uu ka dhintay. filimkeenu waxa uu ku dhammaanayaa caruur badan dhalashada Sanji jooga, halkaas waxa kale oo joogtay Sonita ayaga oo jacayl wadaagaya. baliis haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka waxaa ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto, leegtaaduna waa noo dhiirigelin, commentigana fikirkaaga nagula wadaag waa noo muhiim.